بسم الله الرحمن الرحيم. marka lagu soo dhawaada barnaamijkeennii weydiinaya warcelin ee aad channelkan uga barateen xalqadiisii sagaalaad. Maanta waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo weydiin la soo weydiiyay jawaabteeda oo isleeyahay in badan oo idinkeena ka mid ah waa laga yaabaa inaad danaynaysaan. weydiintu waxa weeye waxa haysata mushkilad ah wax kasta oo aan akhriyo waxyaabihi aan ka faa'iideeyay hadhow aan rabay inaan adeegsado ama dadka aan la wadaago ama aan naftayda dib u xasuusto si aan u dhaqan geliyo ma soo qaban karayo markaan u baahanahay macluumaadii aan meel ka aqriyay ama buugan ka aqriyay ama article aan ka aqriyay dib uma soo qaban karayo oo way igu adagtahay inaan qabto marka maxaa arinta lagu qofku uga kori karaya ama waxyaabihi macluumaadkii uu aqriyay oo xasuustiisa kor ugu qaadi karaya. waxaan jeclahay inaan muuqaalka marka idinku soo gudbiyo ilaa 5-6 meelaha tab ama hab oo inta badan culimadu ka hadlaan culimadan cognitive psychologist ee inta badan tilmaama culimada memory wala qaybta qaabilsan. Ta koowaad waxa weeye in aad macluumadan inta hor inta aanad akhrin aad abuurto xiise ama maskaxdeenu sideedaba waxa ay maaragtay weelaysaa macluumaadka inoo muhiimka ah yani ilaa awoodiisa maskaxdeenu yani intaasoo macluumaad ayaa gala sida caloosheenuba dheefshiidku maaragtay wax kasto aan cunno uu kala shiido oo wixii nafaqo oo jidhkeenu u galiyo hab la mid ah ayay leedahay maskaxduna oo macluumaad kasto aynu intaasoo macluumaad baynu maalinkii la kulanaa in badan oo unconscious leeyahay ogeyn baa jirtay maskaxdeenu qaadato waxaasoo dhan maskaxdu way kala shaandhaysaa oo habeenkii qofku marka uu seexdo oo kale waxyaabaha hurdadu ay qabato waxa kamid ah qofku maskaxdiisa macluumaadkii uu akhriyo dhan ama uu maanta maqlay ama indhihiisa xawaasiisa shanta ay maskaxdiisa u gudbiyeen way kala shaandhaysaa wixii muhiim u ah qofka way ka tuurtaa marka waxaan uga jeedaa macluumadan ka hor inta aan akhrin dad buug akhriyaysid dad muuqaal dhageysanaysid dad article akhriyaysid macluumadan marka horeba aad doonaysa muhiimadda ay ku leedahay waa inaad dareensan tahay muhiimadda waa inaad jira interest wixii interest maskaxda u leh qofka u leh ayay maskaxduna weelaysaa dareen waa inuu jiro marka isku day inaad raadisid macluumadan aad doonaysa inaad xifdiday macnaha ku leh wax ku faa'iideynaysa hadhow aad doonaysa inaad dib u xasuusto marka aad akhriyayso create some sort of fascination ama inaad xiise